بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا معدك برشادة علومتا كمبيوتر كايرر عشر كان مانتا وحوك سابسن يهي مايكروسوفت اكسل مايكروسوفت اكسل وان قصدي قادم دونا هدو الله ود لا يراهدو توتال oo ah sida loo xisaabiyo wadarta shay walba haday noqoto dhibcaha ardayda ashyaa kala xisaabsan then marka waxaan ku isticmaalinaa formula saddex formula isticmaalinaa oo kala duwan saddex hab oo kala duwan mar isticmaalinaa jidka koobaad waxaan leenahay equal calaamada la mid aan qoraynaa then waxaan qoraynaa sum equal sum baan leenahay bracket baan furaynaa markaan equal sum nidhi bracket furay halka u horeeya maadada u horeeya column-ka ugu horeeya column B row 2 gaan tagaynaa column-kan B maadada ugu horeysa ku jirto iyo ardayga ugu horeeya halku magaciisa ku jiro waa B maadada ugu horeysa Soomaali B bay ku jirtaa halka ay ku jirtaa B ardayga ugu horeeyana halka ku jiraa marka waxaan leenahay waxaan ku dhufanaynaa maadada ugu horeysay kadibna waan ku jiideynaa xagga ilaa iyo dhamaad maadada ugu dambeysay marka halka waxay soo keen qortay equal sum b2 ratio f2 then bracket kan ku xidhinaa enter baan leenahay marka ay noo soo baxda natiijada ardayga koobaad ama shayga ugu horeeya natiijadiisu ama wadartiisu waxaan sameynaynaa halka baan tagaynaa marka calaamada plus uu ka bedesho laba jeer baan ku dhufanaynaa double click kadib waxa ay noo xisaabsamaya dhammaan ardaydii meesha ku jirtay haddii ay yihiin 10 10 20 wax ka yar hal daqiiqo yaan ku xisaabinaynaa dhibcooda ta ku xigta waxa weeye tan aska clear gareynaa ta ku xigta waxa leenahay equal sum bracket b2 ratio f2 iyadana waa sidii oo kale aan ku dhufanay jidkan saddexaad aan ku xisaabinayna waxa weeye halka aad tagaysaa highlight bad saar intaad xisaabinayso kadib waxaan tagaynaa halka ay ku qoran tahay auto sum waxaan ka sii dooranaynaa sum oo ah wadartii waxaan noo soo baxay wadartii shantan maado ee maxamed then markaan u baahan ardaydan kale dhibcooda inaan xisaabino iyagana sidoo kale ma sameynaynaa halka baan dul tagaynaa laba jeer ma ku dhufanaynaa marka halkaas waxay noogu dhan qaabka loo xisaabiyo wadarta